mudane waxaa warbixin kooban naga siisaa jaamacadda Arel University gudoomiye xasan toob horta ku soo dhawaad jaamacadda Istanbul Arel waxay ka mid tahay jaamacadaha barefadka ee ku yaala magaalada Istanbul sidoo kale waxay ka mid tahay jaamacadda ardada ugu badan ee ajaanibta ay dalbato oo shanta jaamacado ugu ardada badan ay ku jirtaa Turkiga sidoo kale jaamacaddan hadda dhismahan aan joogno waa 65 kilomitir square waaye soo runtii ardada siinayo meel ay ku baashaalaan ay ku nastaan markii aysan xiisad lahayn sidoo kale balaca jaamacadda aad u weyn yahay sidoo kale waxay leedahay jaamacadda gudaheeda marka la fiirsho dhismayo fara badan ay leedahay oo runtii ardada ajaanibta ay uga wada faa'iideysan karaan wayahay waxa kale ku weydiinaa su'aasha labaad ee xigta ka waran tayada jaamacadda tayo ma leedahay jaamacadda Istanbul Arel runtii tayo waa leedahay sanad kasta waxaa jira xasan oo liis dawladdu ay ku dhawaaqdo waliba hay'ad dawladdu ay taageertaa ku dhawaaqdo sanadka 2020 liiska lagu dhawaaqa marka aan fiirino jaamacadda Arel waxay soo gashay 85 jaamacad ee ugu fiican liiskaas markaan gudaha u sii fiirino waxaa kaliya barefadka ah 10 jaamacadood oo Arel ay kamid tahay inta kale waa jaamacadaha dawladda marka taasina waxay ku tusay runtii awoodda jaamacaddu ay leedahay marka xagga tayada wax problem kama jiro waa jaamacad tayo leh jaamacadda Istanbul luqadee lagu dhigtaa jaamacadda Istanbul Arel Englishna waa lagu dhigtaa Turkishna waa lagu dhigtaa laakiin waxaa jiro kuliyado 10 gaarayo oo engineeringka iyo social science-ka iskugu jiro iyo sidoo kale hal kuliyad oo master ah oo ay 100% English ku hayaan haddii kuliyadaas wax yar aan ku dul maro kuliyada computer engineeringka electriga business administrationka international trade international relation sidoo kale molecular biology and genetics electric and electronic kuliyadaas waxay ku hayaan 100% English iyo sidoo kale kuliyada kalena way jiraan waayahay qiimaha sida caadiga loo dhigto jaamacadda waa imisa haddii idinka idin soo maraan ardayda horta jaamacaddan qiimaha lagu dhigtaa waa $7,000 ardayga toos u yimaada waxay u sameeyaan qiimo dhimis gaaraysa 50% taas oo micnaheedu yahay ardayga oo ku dhiganaya jaamacadda qiimo 3,500 ah laakiin ardada ka soo xareysta xafiisadeena waxay ku dhiganayaan qiimo ka sii jaban qiimahaas 3,500 meesha caadiga ardada ay helaan anaga ardayna waxay helayaan 2,950 oo taas oo micnaheedu yahay in 550 aan ka jabannahay ardada caadiga ah saas awood ardada waxaan kula talin lahaa inay ka soo xareystaan xafiisadeena way imis arday ayaa hadda dhigata inay inta dhigata waa 12,000 oo arday oo iskugu jiro Turki iyo sidoo kale ajaanib waya ma leedahay deegaan ardayda ay dhigto waa leedahay waliba waxay leedahay jaamacadda Arel deegaan runtii filooyinka aan naqiyeen oo caadiga ah oo dalxiiska loogu talagalay maanta ayaga waxay siiyaan ardayda siiyaan taas oo runtii ah fursad aad iyo aad u weyn filooyinka qaarkood waxay leeyihiin dabaashi dhammaan wixii loogu talagalay in filla ay yeelato waa ay leeyihiin waliba ardayda waxay uga kireeyaan ama ardayda waxay bishii ka qaadaan lacag aad u jaban marka deegaanka hadday ahaan lahayd gabdhaha hadday ahaan lahayd wiilasha labadaba waa leeyihiin way sidee ardayda ku yimaadaan ardayda waxay ku imaan karaan laba qaab waa qaabka koobaad hadday Turkiga joogaan inay inta xafiiskeena yimaadaan toos aan ugu soo xareyno kadib jaamacadda aan keenno iyo sidoo kale in ardayda banaanka joogto ay ka soo xareystaan ama website-keena askwin.com ama ay ka soo xareystaan xafiisadeena kadibna hadday fiisaha soo helaan ay yimaadaan sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay dalka gudihiisa macnaha waxay ku leedahay goobo fara badan oo gawaari ardayda ka keento oo ay jaamacadda toos ugu imaan karaan marka xagga transportation-ka runtii jaamacaddu waxay leedahay gawaari lacag la'aan ah oo ardayinka ka soo qaado location kala duwan oo jaamacadda keenay imise xarun ay leedahay jaamacaddan hadda xaruntan aan joogno xasano waa xarunta ugu weyn ee jaamacaddu leedahay waa 65 kilomitir square waa xaruntan laakiin waxaa jiro xarumo kale oo masterka iyo loogu talagalay kuliyadaha caafimaadka oo ku yaalo dhanka Yurub Istanbul uga yaalo laakiin midkan hadda waa midka ugu weyn marka la isku daro saddex ay leedahay marka ardayda rabta haddana daawanaysa inay jaamacadaha in loo xariirabaan maxaa shuruud looga baahan yahay ardayga waxaa looga baahan yahay horta shuruud ah inuu dugsi sare soo dhameeyay ama uu haysto caddayn ah inuu dugsi sare dhammaynayo sanadkan oo warqad ka soo qorto iskuulkiisa haddii uu intaas noo keeno aqbaladiisa waa u soo saari karnaa kadibna markuu shahaadadiisa soo helo jaamacaddiisa waa ka diiwaangeli karnaa ardayda lacag maga qaadaan mise free ayaad ku shaqaysaa maadaama aan nahay xasanow agency official ah jaamacadaha barefadka oo ay kamid tahay jaamacadda Arel ardada xareysato waxa lacag kama qaadno ha noqoto hadda iyo ha noqoto sanadihii la soo dhaafay ardada waxa ugu shaqeynaa waa lacag la'aan kaliya jaamacadaha barefadka ardada doonay waayahay ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeyn lahaa ardada Soomaaliyeed ee danaynayo in ay qiimo jaban ku dhigtaan jaamacad tayo leh waliba ku taalo Istanbul inay ku soo dhawaadaan jaamacadda Istanbul Arel runtii marka la fiirsho Arel jaamacadaha tayada leh jaamacadda ugu qiimaha jaban waaye taasna way ogyihiin kulli ardadeena hadday na daawanayaan ayaga ay marqaati furi doono ardada kalena markay yimaadaan ay ogaa doonaan runtii qiimaheeda aad uga jaban yahay marka la fiirsho jaamacadaha kale ee ku tayada ah teelada ka soo xiriiraya hadaatiina isku waxaan nagala soo xiriiri karaa xasan oo xafiisadeena Hargeysa Muqdisho iyo Istanbul iyo sidoo kale website-keena askwin.com macaamiisheena waa nagala soo xiriiri karaa
aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha askuni.com.